waxaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa Asma Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray oo noqotay shakhsigii ugu horeeyay ee reer Soomaaliland ee waalidkeed u saarta mid kamid ah kaliyaheeda. Asma ayaa kalideeda midig u saartay aabaheed Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siro oo kamid ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland kaasi oo ay la soo diristay dhibaato caafimaad oo sababtay in mid kamid ah kaliyihiisu ay fadhiisato. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siro iyo inantiisa Asma Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud ayaa waxa lagu qalay cusbitaal ku yaala wadanka Hindiya iyadoo labadooduba ay ka bogsadeen qaliinkii lagu sameeyay taasi oo dhaqaatiirtii qaliinkaasi sameysay ay si fiican ugu guuleysteen. garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ayaa markii ay maanta Asma ka soo degtay waxa si balaaran ugu soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan iyadoo intaasi kadibna ay wariyaashu qolka nasashada ku weydiiyeen dareenkeeda ku wajahan talaabadii geesinimada ahayd ee ay aabaheed kalida ugu saartay iyo waliba xaaladeeda caafimaad sida imika ay tahay. wallaahi dadku say filayaan wax fiican baan sameeyay laakiin anu xaqayga waajibkaygu baan ku teeban leeyahay حق والدك قاعد بو بلانية وحنتها كسو كوبي كرما كليان بحية وحاس وحن حق والدك إن يرح تمان قدين الحمد لله لكن أداني يا أبا يعرف ما تقبل قاعد بنفرح سنة. بل واحد نقول شيء تا إمكوت هالك اللي كوش قاين صوي بركض لك هذا بالفرق عاف ما هان ودحين كر. والله واحد فرق يندريمي هبايراتي مجرته 7 days من كشري دخترك 7 days كتب ستيدي من كسر نقدين نورمال. وأنا كفرح سنة دتك يسودوا يناد بماسين فاميلي يا أصحابتي دتك كلام. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro oo isagu ah waalidka inantiisu ay kalida u saartay ayaa isaga laftiisu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay oo qaliinkaasi ka bogsaday iyadoo la filayo in uu dhawaan dalka ku soo laabto isagoo ku sugan imikana dalka Hindiya.